wacan oo wanaagsan dhegaystayaal guud ahaan meel walba aad joogtaan waad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada tixanaha murtida iyo maahmaahyada. tixanaha murtida iyo maahmaahyada waxaynu ku eegi doonnaa murtida halkudhigeedu ay tahay hubsiino hal baa la siistaa ama hubsiino hal baa la siistay. murtidaani waxaa ku qarsoon sheeko aad u qurux badan. sida la sheegay waxaa jiri nin geel badan leh oo caaqil reer u ah, gabar uu dhowaan guursadana qabo oo aan weli carruur u dhalin, waana ninka baxshay mahmaahdan. sida la sheegay ninka aan kor ku soo sheegnay waxa u soo hoday oo marti u noqday nin xigmad badan oo caan xilligaa ahaa. ninkii ayuu soo dhoweeyey. markii uu marti geliyey ayuu ogaaday inuu yahay ninka kani ninkii xigmadda badnaa ee la sheegi jiray. wuxuuna ku yidhi, hadal murti ah ii sheeg oo wax i tara nolosheeda, oo aan kaa siisto geelayga hasha ugu wacan. ninkii xigmadda yaqaani waa uu ka yeelay. subaxduu tegayey ayuu ku yidhi, hashii waxaan kaa siiyey wax hubso. ninkii hashi sidii ayuu ku siiyey, isagoo kelmadda macnaheeda la fududahay, umana arag inay tahay kelmad wax tari karta ama xigmad ku salaysan. muddo kadib ayuu ninkii ka socdaalay reerkiisii. intuu maqnaa ayaa waxaa reerkiisa yimid seedigii, waa xaaskii walaalkeed oo aan isaga weli arag. walaashiina habeenkii aqalka ayay seexisay, ilaa ninkeydii waa maqnaa. goor aroor hore ee tahay oo aan weli la toosin ayuu ninkii reerkiisii ku soo laabtay. markuu aqalkii soo galayna wuxuu arkay nin dhex hurda, xaaskiisana iyana hurda. yaab iyo amakaag ayay ku noqotay. isagoo caraysan ayuu bilaabay u xirneed oo ninkii hurday ee seedigii ahaa dhuunta ka saaray oo damcay inuu qudha kaga jaro. intaanu bilaabihii dhaqaajin buu xusuustay kelmaddii uu ninkii xigmadda badnaa uu ku yidhi ee ahayd wax hubso. kolkaasuu intuu isqabtay xaaskiisii toosiyey oo weyddiiyey ninkan la hurda aqalka cidduu yahay. iyada oo naxsan ayay u sheegtay ninka inuu yahay walaalkeed oo bah kale ah, xalayna u soo hoyday. kolkaasuu bilaabihii dhulkii ku tuuro oo yidhi, hubsiino hal baan siistay, isagoo ula jeeda kelmadda ah wax hubso inan bilaash ku soo gelin oo hal geel ahi nin ka siistay. kadibna waxay noqotay maahmaah caan ah. dhegaystayaal, hore ayaa waxaa loo yidhi sheekoba sheekee keentaa. haddaba sheekadaani waxaa jirto sheeko kale oo la mid ahi. waxaa la yidhi nin aamin ah oo iimaan badan leh, magiciisana gurxan la yidhaahdo oo xaas iyo wiil yar leh, ayaa wuxuu u shaqayn jiray nin taajir ah oo xoolihiisa laisu celin waayey. dadkii uu hoosha la hayay gurxan waxay ku tixgeliyeen siduu xilka isaga ilaaliyo iyo dhaganuglaantiisa. goortuu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal guud ahaan meel walba aad joogtaan waad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada tixanaha murtida iyo maahmaahyada. tixanaha murtida iyo maahmaahyada waxaynu ku eegi doonnaa murtida halkudhigeedu ay tahay hubsiino hal baa la siistaa ama hubsiino hal baa la siistay. murtidaani waxaa ku qarsoon sheeko aad u qurux badan. sida la sheegay waxaa jiri nin geel badan leh oo caaqil reer u ah, gabar uu dhowaan guursadana qabo oo aan weli carruur u dhalin, waana ninka baxshay mahmaahdan. sida la sheegay ninka aan kor ku soo sheegnay waxa u soo hoday oo marti u noqday nin xigmad badan oo caan xilligaa ahaa. ninkii ayuu soo dhoweeyey. markii uu marti geliyey ayuu ogaaday inuu yahay ninka kani ninkii xigmadda badnaa ee la sheegi jiray. wuxuuna ku yidhi, hadal murti ah ii sheeg oo wax i tara nolosheeda, oo aan kaa siisto geelayga hasha ugu wacan. ninkii xigmadda yaqaani waa uu ka yeelay. subaxduu tegayey ayuu ku yidhi, hashii waxaan kaa siiyey wax hubso. ninkii hashi sidii ayuu ku siiyey, isagoo kelmadda macnaheeda la fududahay,
umana arag inay tahay kelmad wax tari karta ama xigmad ku salaysan. muddo kadib ayuu ninkii ka socdaalay reerkiisii. intuu maqnaa ayaa waxaa reerkiisa yimid seedigii, waa xaaskii walaalkeed oo aan isaga weli arag. walaashiina habeenkii aqalka ayay seexisay, ilaa ninkeedii waa maqnaa. goor aroor hore ee tahay oo aan weli la toosin ayuu ninkii reerkiisii ku soo laabtay. markuu aqalkii soo galayna wuxuu arkay nin dhex hurda, xaaskiisana iyana hurda. yaab iyo amakaag ayay ku noqotay. isagoo cadhaysan ayuu bilaabay u xirneed oo ninkii hurday ee seedigii ahaa dhuunta ka saaray oo damcay inuu qudha kaga jaro. intaanu bilaabihii dhaqaajin buu xusuustay kelmaddii uu ninkii xigmadda badnaa uu ku yidhi ee ahayd wax hubso. kolkaasuu intuu isqabtay xaaskiisii toosiyey oo weyddiiyey ninkan la hurda aqalka cidduu yahay. iyada oo naxsan ayay u sheegtay ninka inuu yahay walaalkeed oo bah kale ah, xalayna u soo hoyday. kolkaasuu bilaabihii dhulkii ku tuuro oo yidhi, hubsiino, hal baan siistay, isagoo ula jeeda kelmadda ah wax hubso inan bilaash ku soo gelin oo hal geel ahi ninka siistay. kadibna waxay noqotay maahmaah caan ah. dhegaystayaal, hore ayaa waxaa loo yidhi sheekoba sheekee keentaa. haddaba sheekadaani waxaa jirto sheeko kale oo la mid ahi. waxaa la yidhi nin aamin ah oo iimaan badan leh, magiciisana gurxan la yidhaahdo oo xaas iyo wiil yar leh, ayaa wuxuu u shaqayn jiray nin taajir ah oo xoolihiisa laisu celin waayey. dadkii uu hoosha la hayay gurxan waxay ku tixgeliyeen siduu xilka isaga ilaaliyo iyo dhaganuglaantiisa. goortuu miidaadinkaas in door ah hooshii hayay ayuu xaq wuxuu u yeeshay 3,000 oo shilin. markuu ogaaday inay lacagtiisa ku filan tahay buu taajirkii wuxuu ku yidhi, niyahu waan tegayaa xaqaygiisii. suye taajirkii, 3,000 3 talo ma iga siisanaysaa? isagoo wax shaki ah isgelin buu wuxuu yidhi, waxba kama qabo. intuu dib u xusuustay inay taladu qaarkeed maalka dhaanto. markaasuu taajirkii ku yidhi, weligaa toobiyaha marin, waxaan hawshaada ahayn ha gelin, meeshaad ka carootana dib uga noqo. taladii ugu horraysay tijaabi buu is yidhi. markaasuu toobiyihii looga digay ku dhacay. siduu u soconayey buu niman qaaqaaban oo dhabbihii dhex taataagan ku soo baxay. markay isnabadaysteen ku yidhi, war maxaa sidan idiin galay? niman shufto ah ayaa meesha nugu dhacay bay ugu jawaabeen. goortaasuu garwaaqsaday taladii taajirka inay rumowday oo toobiyuhu uusan bahal iyo col midna laga waayin. isla markiina ka leexday oo hayjaddiisii xulay. goor barqadii ay tahay ayuu magaaladii ku soo baxay. mise duqii magaalada xukumayay baa gabar inta garbaduub u xidhay oo dhambacaad u jiifiyey barida jeedalka la dhacaya. qofkii war gabadha sidaan u dhan yidhaahda iyo kii inuu ka qabto isku dayana iska dhagatirayaa. gurxan inta agtiisii soo maray buu hore u dhaafay isagoo ju' u odhan. markaasuu duqii yidhi, war soo islaam ma tihid, maxaad gabadha aan dilaya iiga qaban weyday? suyeh gurxan, adeer, waxaan hoosheeda ahayn ma galo. afkiisa markay ka soo baxday oraahdaasi ayuu duqii gabadhii diliinkii ka daayey oo yidhi, waa kaas ninkaan doonayey, waxaan hooshiisa ahayn aan gelin. 3,000 oo shilinna abaalgud u siiyey. gurxan 7 sano markuu magaaladii joogay ayuu meeshii reerkiisa ku ogaa dib ugu soo noqday, isagoo ku tashoon inuu xoolo iibsado. intuu tubtii soo socday waddooyinkii dhan wuu ka leexanayey oo qardajeex buu ahaa. taasna wuxuu ku jarribay taladii ugu horraysay oo uu cawaaqibkeeda ogaaday iyo lacagtuu u tarantay oo watay. goor uu guuraynayo ayaa geel koortiisa meel cabbaar ah u jirta uga baxday. soo intuu ku soo higsada buu wuxuu ku soo baxay geel xaraysan oo niman golihiisa ku waalaysanayaan, dabna u shidan yahay. markaasuu ku yidhi, war maxaa sheegteen? nabad intaynu ognahay ee adigu maxaa sheegtay bay yidhaahdeen. wax dareen ah ma ogi ninka gurxan la yidhaahdo reerkiisii waa xaggee? isagii baa weyddiiye oo aysan isgaranaynin. waa aqalkaasi sii jeeda bay ugu warceliyeen. gurxan gurigii buu aaday. markuu tegana wuxuu arkay afadiisii iyo nin raarka ku wada jiifa. amley ama bilaab u xirnayd buu intuu galka ka jiitay wuxuu damacay inuu ninka ku kala gooyo. markaasuu taladii 3aad soo xusuustay oo inta galkeedii ku ceshay nimankii dib ugu soo noqday. markaasuu ku yidhi, war maxaad beenta iigu sheegteen? sootan aqalkii ninku dhex jiifo. goortaasi qofsi la dhaceen oo waxay yidhaahdeen, waa wiilkiisii isagoo yar uu ka tegey. gurxan kolkaasuu gurigiisii ku laabtay isagoo wax dhaliil ah ku jirin. dhegaystayaal, sheekooyinka ku qotoma hubsiina hal baa la siistaa waxay inoo tilmaamayaan in hubsashadu iyo deganaanshuhu ee mar walbaahi ka door leedahay fudaydka iyo degdega. maxaa yeelay in arrinta xaqiiqadeeda la ogaado qiimo weyn bay leedahay. eeddadow wax ha la hubsado. dhegaystayaal,
taxanaha murtida iyo mahmaahyadana maanta halkaa inoo joogto ta intaa ku kulmi doonno qayb kale.